waxaan u gelayaa xaaladda siyaasadda waan soo koobayaa qodobo aniga iyo xoqaya anigu ra'yigayga aan ku cabirayo baan ka hadlayaa toore waxa weeye wadahadalkii u socday Somaliland iyo Khaatumo maadaama aan ahay wakiil deegaanada ka tirsan waxa ay muuqato wadahadalkaasi inuu deadlock inuu istaagidiisuna اعتراف بين ولادنا اعتراف كانوا ولادنا وحين كل ولادنا إن نضلنا هاي أدونكم مركو ده إن قيمين وحلا قيمين يا institutions كين سيدا نقول سنة إن قال جده إني هدينا نهشيس هين اعتراف إيمانية نينونا كهمين اعتراف إيمان ماي اعتراف وحكوا حرية هاي إنكم مركو هراء أين هشين وهذا قيدين بروفيسور علي خليف كلاي oo xubnaha ugu miisaanka weyn siyaasiyiinta Soomaaliland iyo dhulka Soomaalida ba wuxuu u soo guntaday in heshiis meel mar ah uu la galo Soomaaliland heshiiskii waa la galay qodobadii waan hubaa qaarna waxa fuliyay xukuumaddii ka horeysay qayb kalena waxa fuliyay waan uga mahad celinaynaa madaxweyne Muuse Biixi laakiin waxa dhiman qodobadii dadku bay isku fahmi lahaa ee lagu heshiin lahaa ee siyaasiga ah koow waxa ka ah furitaanka dastuurka haddaan dastuurka la furin Khaatumona iyo gobolada deegaanadaasina Somaliland la heshiin maayaan annaguna way adkaanaysaa inaan golayaasha sii fadhino lama sii fadhii karo haddaan dastuurka la furin oo siyaasiyiin loo heshiin oo aan wax la wada yeelan markhaati beenaale dambe kama samayn karno ma la igu raac waxay u baahan tahay raalina halayga ahaado waxay u baahan tahay bal mesela waxa yeegtaan iminka yani halka markaad ka timaado Khaatumo bal saami qaybsigii oo kaliya saami qaybsigii cid ka dudaysa ee diidan ee marba kala riixaysa in siyaasiyiin bay noo isognayn waa beesha dhexe beelihii darafyadu arrinta ugu culus hadda imika taagan markaad ka timaadaba sida wax u wada yeelan doon imika haddii la yiraahdo Soomaaliya waynu kala baxnay oo la helo i'tiraaf ma idin la tahay inaanu raali ku noqonayno in dalka lagu i'tiraafo iyadoo hadeerba aynaan heshiis ahayn hadeerba iyadoo saamigii iyo wada qaybsigii uu liito tan oo i'tiraaf hesho balka war qodobka markaa meesha yaala waxa weeye takaleesi dilaysa waxa weeye in waxa la yiri saamiga la qaybsado saddex nin oo beesha dhexe ah gudoomiyayal ka ah saddex xisbi samaystay saddexdii baa la weydiin shiraynaa halkaas soo fadhiya ma macquul ba meel aanan waxba ku lahayn anigu shakhsiyan min Somaliland oo Somalilandnimada waliba kalarka ku haya kuwa badan oo beesha dhexe ah fadhiyay bana laakiin wax wada qaybsigii iyo wakiilnimadii aan dadka kaga ahaa ma sii wadi karo waxaan idin sheegayaa anigu shakhsiyan qaran maayo saaxiibadayda kale inaan is asiri doono hadii hawsha si degdeg ah wax looga qaban waayo